horta siyaasiyiinteenu nin dhacaawo ma jiro maanta haddii cid dhacayso saddexda mas'uul shalay hadlay taariikh xun oo madoobi Soomaaliland ku leeyahay inay maanta Soomaaliland inta soo istaagaan ay yiraahdaan xaaladana ka hadlaan horta waa ayaan daro Ismaaciil Yare oo shalay sheegay inuu ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa Soomaaliland Ismaaciil ciidanka nabadgelyaduna way og yihiin ama boolisku wasiirkii ugu foosha xumaa ee xil laga qaado wahay arrimaha gudaha Soomaaliya wuxuu ahaa wasiirkii ciidanka nabadgelyada amba booliska amba SBU-da lacagtii arayd ee habeen dhax ahayd ee la siiyay intuu ka cunay ay ku mudaharaadeen ka bacdina xilka lagaga qaaday waxa fiican lahayd taariikhda dib u eegto intaad sheegayso wuxuu ciidankan u turayaa ciidankan jecelahay war ciidanka ka xoolihiisa cunaysay baad ahayd aniga carruurtaydii gurigayga waxa soo weeraray xirsi baa soo weeraray talada guriga lagu soo weeraray isaga bixiyay anigoo si nabadgelyo la qaban kar lahaa waxaan maanta halkan ka cadeynaa waxa la yiraahdo wasiirkaas ugu dagaalamay xabadu gurigayga markay ku dhacdo markuu baraarugnay gurigayga 12 milyan rasaas laga riday xirsiin ka badan gurigayga 700 xabo rasaas ay ku riday taliyaashiina way joogaan amarkan isaga bixiyay maanta wuxuu haleeli kari waayay inuu carruurtiisa Hargeysa ku hayo Soomaalidu waxay tiraahdaa hiirtaayo qaba walaal ma xidhiisho oo nin lama daba socdo xirsi wuxuu ahaa ninkii inta nadiira maxamed 7 bilood ay xidhnayd 7 bilood iyadoo aan la marin maxkamad maanta doonayay inuu yiraahdo ciidan baa wax xidhay iyo ciidan baa waxa sidaas sameeyay Xuseen Axmed Aydiid Xuseen reer Axmed Dhagaxna way yaqaanaan waxba odhan maayo wuxuu yiri fartaada war adag ciidiga guliga taariikhda farku wax ku siinaysa ma jirto gurigaaga biyo laga macbu xabaasha ka waxa ka xishooda jaarkaaga ka xishooda inay gurigaaga biyo soo doontaan digaan wadani waxa jira xubno badan oo xiriir toos la leh dawladda xamar oo kooxaya xogayaha guud xisbiga ee wadani waxa ogtihiin inuu Hargeysa dhexdeeda ka yiraahdo waxaan soo dhaweynaynaa inuu yimaado dib kuma aha wiil inuu farmaajo yimaado isaga iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku xiriir toos way leeyihiin isaga iyo Nicola Abdullahi waa la yiraahdo in Kuwait jooga jaamacadda ka tagay xiriir toos way leeyihiin waxaan jecelahay xaaladda degdega ah dawladdu laba sababood laba ujeedo bay kala ahayd ujeedada koowaad waxay ahayd ciidanka nabadgelyada ciidanka guud ee Soomaaliland sida ay qacaanta uga soo dhigi lahaayeen nimankii labada sarkaal dilay waxa kale oo ogtihiin degmooyinkaasi waxa ku soo noqnoqday dagaal beeleedada iyo beelaha istilaaya malawi looban xisbiga wadaniye salawiga waxa ka dhacay shil dad ku dhinteen oo dagaal laba beelooda markaas ay ciidanku waxa kameeyaan colaadaas ayaa sababta koobaad ahayd horta gooladiida ma jiro kala waa la xiray kala xiray iyadana waqtigeegu marka joogan insha Allah taala laakiin waxaan ku sheegay xukuumaddu waxay adeegsan kartaa xeerar badan oo u waajibinaya xeer 32 2010